kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Kafaalo oo kamid ah hay'adaha maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo wacyigelinta sidoo kalena soo saarto joornaal lagu daabaco waxyaabaha lagu muujinayo horumarinta dhinaca waxbarashada isla markaasina ay hay'addu ku shaacinaysay in xilligii la aasaasay ay ka soo wareegtay muddo 10 sano ayna ka soo qayb galeen xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland waxgarad macallimiin arday aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay hotel Kismaayo ee magaalada Kismaayo ugu horreyn waxa munaasabada daahfuray wasiirka waxbarashada iyo arrimaha bulshada Jubbaland Macallin Maxamed Ibrahim waxaana uu yiri waxa weeye waa ilaahay mahadiisa waa caymad weeyaan aad buu caymad u yahay waxa kale oo caymad ah in sidan oo kale oo bulsho si noocan ay wax horumar iskugu imaato wax hore loo sameeyo wanaagsan iskugu imaato iskuulo laga fikirayo la iskugu imaato maslaxad guud la iskugu imaato ayadoon la dagaalaynin hadduu dadkan hadda ruux ku boodo soo balaayo ma sidaan ku diray sidaas ay dadkan ruux qabsanay in maanta si nabada loo wada fadhiisto oo si nabada dib loogu xusuusto waxa soo maray oo cidii wax inoo tartay aan xusuusano aad iyo aad bay muhiim u tahay aad iyo aad hadda marka maxaa la rabaa hadda waxaa la rabaa qof walba qofka walaalkiisa inuu iska cafiyo mahadsantiin barnaamijka deynaan anu furayahay inoo furan yahay waana ku faraxsanahay jamhuuriyaddan xoogga magaaladiiba xooggeedii nimanka hadda intaan isku soo ururiyay magaalada ayagaaba haystaba hadda waxa laga garan karaa nimanka iskuulka inay wax weyn gacanta ku hayaan intan bay isku keeneen intanna waxay ku soo wada xiran tahay dawladdiiba ku xiran tahay xildhibaanadiiba ku wada xiran yihiin wax walba isku xiran yihiin maxaa la rabaa macallimiinta iyo maamulayaashu inay niyeystaan ayagaaba dawlad aba intaasi kadib ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hay'adda Kafaalo Muqtaar Maxamed Xuseen iyo Maxamed Axmed Warsame oo ah madaxa hay'adda Kafaalo ee Soomaaliya kadib mashruuc agoon bay Kafaalo ku bilowday ujeedada loo aasaasayna waxbarasho ahayd laakiin dadka uu tabarta daran caruurta ah aan aabahood dhintay ama rajayga ah in wax la baro buu hadafku ahaa marka waxa loo sameeyay nidaam cunug walba sawirkiisa iyo magaciisa iyo database lagu xareeyo agoontaas 2006 bay si fiican u howlgaleen Kismaayo 100 baa laga qabtay Goday 100 baa laga qabtay Mandheera 100 baa laga qabtay Baran 100 baa laga qabtay Cadaade 100 baa laga qabtay Burcana 100 baa laga qabtay waxay markay idin sheegaysaa yaani Soomaali meelahay kala duwanaanshaheedii in la isku day mid walba wax lama wada gaarsiin kara in qayb laga qabto haddaan idin geliyo 2006 waxaan bilownay Soomaalida qurbaha inaan shirino oo aan u bandhigno fikirkaas oo ay isqoraan marka hadafka Kafaalo wuxuu ahaa Soomaali ka qaad Soomaali si kolba mashaariicdan qabanay waxaan ku soo koobaynaa dhowr kan mashruuc oo Kismaayo ka qabanay waxbarasho tayaysan qalabyo waxbarasho gargaar degdeg ah dib u dejinno iyo mashruuca isku filnaansha gaarsiinta oo aan u sameynay agoonta reer Kafaalo ay la wadaageen agoomihii kale intaas oo halkan waa dugsiga la yiraahdo Kafaalo Schools Ganaane haddana la yiraahdo Ganaane Kafaalo Academy dad badan oo reer Kismaayo ay garanayaan si uu ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland Aadan Khaliif waxaana uu yiri waxaan u hambalyeeynaa hay'adda Kafaalo khaas ahaan waxaan u hambalyeeynaa shantii arday oo indheer garadka ahayd oo inta isu timid barnaamijkan bilowday kana mira dhalisay waa u hambalyeeynaa waxaan kula dardaarmayaa waxbarashada quality-geeda aan ka hadlayay waxa asal u ah manhajka manaahijta kuwa wasaaradda waxbarashada hala raaco kuwii hore hala raadiyo kuwa had wasaaradda waxaan qabaa in ay aad uga shaqaynayso Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.